munaasabadan oo ahayd mid seer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ku qalin jibinayeen dufcadii 7aad ee dugsiga sare iyo dufcadii 8aad ee dugsiga dhexe ee Caynul Cilmi Primary Secondary School kana mid ah iskuulada facweyne ku yaala magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay isla magaalada tan caasimada Soomaaliya Muqdisho iyadoona ay ka soo qayb galeen waalidiin mas'uuliyiin professorro macallimiin waxgarad dhalinyaro haween iyo sidoo kale marti kale oo madashaasi lagu casuumay markii munaasabadan la guda galay waxa ugu horeen daafray munaasabada Ustaad Umar Ibrahim isagoona madaxdii iyo mas'uuliyiintii kale iyo ardayda waalidiinta ka soo qayb gashay munaasabada ku soo dhaweeyay kagana mahadceliyay sida ay waqtigooda u soo ajiibeen isla markaana ay uga qayb qaateen ardaydan farxadooda kale waxaan u mahadcelinaa dhammaan marti sharafta qaybadeeda kala duwan waalidiinta ardayda qalinjabiyaasha ah iyo dhammaan inta ku sugan boholkan ugu horeeyo TV-ga dalsan idinkana waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh بعد السلام مانتو قميص وأولادي 8 نوفمبر ومالين نوين أدعنا هاي بعض عين العلمي ومالين تانو أستيني حفلة دي قلنجوين تدفع دي تضوات دوكسي سرة إيو دفع دي سديدات دوكسي ده هدي أنا هاي بعض عين العلمي لمان أنا جوهر أستاذ عمر إبراهيم عثمان أهنا ماذا حفلة ده دوكسي عين العلمي وعين يكسر دوينيا قام فرن waxaan leeyahay soo dhawaada dhamaantiina xafladeena way inoo daafuran tahay sidii hadda inoo bilaabatay oo quruxda badan inay inoo dhamaatay rajayna soo dhawaada mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad xafladeedii way inoo daafuran tahay sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii ka aflixaysay Caynul Cilmi Primary Secondary School ayaa halkaasi ka soo jeediyay khudbadihii kala duwanaa oo ay ku qornaayeen هاي دمسترني دنك استبجع البدني دولي دلال ذهبي ضيح عند عيننا يبكي كالجعل دمان كوها يا من دبانا كل حنول الله صاد ودورتي نفتي ربي يجيب كاجي لالي بلقى همضان عيل بلقى همضان عاي بلقى همضان عرو علاش يعرف كيف كان دعك عري عادل كيدبكم متصل استبشرون والضيوف يهنئون شكرا لكم أمي أبي شكرا لكم يا معلم أهلنا سندا لناكم كنتم لنا داعمين كل الذي يرجو أنا أني أراكم باسم بروفيسوردii macallimiintii iyo martida kale ee madashan ku casuuneed oo ka hadlay xafladda ayaa siyaabo kala duwan ugu hambaliyeeyay ardayda ka aflaxday Caynul Cilmi Primary Secondary School waxaana ay sheegeen inay yihiin arday mustaqbalkooda u hor leh kuwaas oo u rajeeyay inay halkooda ka sii ambaqadaan hadafka waxbarashadooda anigu ku hadlaa magaca waalidiinta inaan idin kala soo qayb galno xafladan saa u qurux badan ee lagu maamuusay saa u sheegay qala jabinta dufcadaha ayaga inta kadib waxaan jecelahay maadaama anigu baan kamid ahay baxda waxbarashada siiba dhinaca kormeerada inaan wax yar oo taariikhi ah aan idin sheego soo qaybgalaasha iba xusuus la idinku xusuusto dufcada 8aad aad uga tagtaan haddaad dugsiga dhirka u beereysaan haddaad anfac kala geynaysaan haddaad talooyin geynaysaan wax la idinku xusuusto oo la yiraahdo waa raasamaalka iyo hantidii ay nooga tageen dufcada 8aad ee dugsiga Caynul Cilmi macallimiintii maamulkiina taasa oo ah maxaan ku dhahay sharaf iyo karaamo oo ah aad u mahadsantihiin ardayda ka qalin jabinaysa dugsiga dhexe una gudbaysa marxaladda dugsiga sare marka koowaad waxaan idinku hambaleynayaa guusha aad soo gaarteen waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad waxbarashada meesha ka sii wadaan ku dadaashaan inaad aqoonta iyo waxbarashadiina sii horumarisaan waxa ka soo gudubteen marxaladdii dugsiga dhexe uniformkii jaalaha ahay ayaa ka soo gudubteen waxaan u gudubteen uniform cadeys ah oo dugsiga sare waxa kordhaya maadooyinkii aad qaadan jirteen maadooyin aan ahayn ayaad arki doontaan oo cusub sidaa darteed waxaan idinka rajaynayaa insha Allah inaad ku dadaashiin inaad dhammaysatiin marxaladda dugsiga sare ardayda u gudbaysa marxaladda heerka waxbarashada sare ee jaamacadda iyagana waxaan rabaa inaan kula dardaarmo inay ku dadaalaan waxbarashada jaamacadda sidoo kalena waqtiga quruxda badan ee marxaladoodii iskuulka ay ku soo qaateen inay jaamacaddana ku dhameystiraan oo aynan xogaa nasan ardayda waxa waa inta badan waxay dhahaan hal sano ayaan fadhiisanaynaa sanad kadib baa jaamacadda bilaabaynaa meeshaasna waxaa kaaga sii dhumaya waqtiga waxaa laga rabaa marka waqtigaaga inaad ka faa'iidaysatid Caynul Cilmi meel badan aan ku kulannay anaga haddii tahay tartan aqooneed tartan sports dhan walba
dugsiga wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ka soo muuqda waayo dugsiga intaasna waa juhdi dadaal uu bixiyo xagga aqoonta hadii la dhaho iyo xagga isdhexgalka bulshada haddii abaalmarin lagu bixin lahaa abaalmarin dugsiga ugu fiican ee dharkiinley waxaan sii lahayn Caynul Cilmi waa u qirnay qofka haddii maanta wax wanaagsan uu qabto oo run ahaantii libinta waa la isku qiraa marka Caynul Cilmi waxa waa aad u mahadsan yihiin inaa markay dugsiga sare waa dhameeyaan inay jaamacadahan noogu yimaadaan halkaas aan ku siino deeq waxbarasho wixii intaasi ka dambeeyay waxa ugu dambeyn munaasabada soo xiray maamulaha guud ee Caynul Cilmi Primary Secondary School Ustaad Maxamed Xuseen Nuur isagoona ardayda uu sheegay inay yihiin arday in badan wax ka soo baranaysay Caynul Cilmi isla markaana waxa uu mahad celiyay waalidiintii iyo martidii kale ee sida kalsoonida leh iskuulka ugu xirnaatay waxaana waalidiintu uu ku tilmaamay inay yihiin waalidiin ardaydooda ay ku aamineen barayaasha Caynul Cilmi Primary Secondary School diin waxa jiro oo aan maanta in halkan ka xusno oo abaalmarin aan sii doono oo dugsiga garab istaag mug leh na siiyay oo garab istaag jiro waxaan leeyahay waalidiintaas aad iyo aad u maasantihiin abaalmarintii Ilaahay jannaha ka dhigo wax kale oo aan gudumahayno aan ay jannada iyadoo dhammaan waalidiinta ay kan reebeen iskuulka ay fiican yihiin haddana iskuulka waxa uu gala tartamay jiro oo dugsiga dhexe dugsiga sare la galo iskuulka sanadkii u horeeyay ee la soo dhaafay waxa uu ka qayb galay tartan dugsiga sare ah ardaydaas soo xulaayay bil ramadaan ay ahayd waalidiin waxa jiro ilmahood gacanta naga saaray oo gabdho ay u badan yihiin aan dhacday ustaad magaalada aan ku noolnahay ogtiin jaam waaye iyadoo hooy u baahan tahay haddana loo kaalmeeso ay tahay waxay dhici jirtay tartan inaan ku soo daahno ilaa 2 saac bisha uu soo gaaro waalidkii ayagoo kalsooni dhameystiran oo buuxda nagu qabo ay ilmaasno dhibteen waxay ka codsanayaan ka ilaa inaad sacabsiisaan horta waalidiintaas Faadumo Cabduqaadir TV-ga Dalsan Muqdisho